iyadoo maanta dadka reer Muqdisho ay filayeen isla markaana cabsi badan ay ka qabeen banaanbax rabshado wata oo ka dhaca xamar ayuu banaanbaxaasi baaqday kadib markii heshiis hordhac ay wada gaareen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo hoggaanka midowga musharaxiinta. ra'iisul wasaaraha ayaa bogaadiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxda dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir doorka wax ku oolka ay ku bixiyeen kamira dhalinta waanta isagoo ugu mahadceliyay sidoo kale madaxweynayaashii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud, mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubnaha kale ee ka tirsan midowga musharaxiinta uu kulanka la qaatay dadaalka dheer ay muujiyeen si loo gaaro heshiiskan. Communique halkan ka soo baxay la isku afgartay meeshii ay joogtay awal in la isaga soo dhawaado nabad iyo tafaahum laga wada shaqeeyo. Arrintaas ayaan anigoo ku hadlaya bulshada reer Banaadir codkooda soo dhaweynaynaa. Hoggaanka midowga musharaxiinta oo qalabka warbaahinta la hadlay ayaa si diiran u soo dhaweeyay heshiiskan Muqdisho ka dhacay. halkan waxaa ka dhacay wada hadal maanta, laakiin sida la idin sheegay hore u soo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan, dad muuqday, dad aan muuqan. marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkaas ka soo shaqeeyay wada hadalkan waqtiga soo socday. maxay ahayd kuna soo gabagaboobay bayaanka la akhriyay oo aad wada maqlayseen. intaas markaan ka gudbo ani waxaan isleeyahay waa tilaab fiican hore loo qaaday. bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah, laakiin muhiim waxa ah inuu wada hadli karo, xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo. waxaan isku hayna waa dawladnimo. dawladnimadana waxaa asaas u ah wada hadal iyo sharci, labadaas asaas u ah. waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto, marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari karo xal. nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah. marka in dadka Soomaaliyeed ay dareemaan dawlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Maxamed Xuseen Rooble oo runtii hogaamin iyo dulqaad iyo ka muujiyay maanta iyo dabacsanaan badan wada hadalladeennii iyadoo oo duruufo badan ay dalkaani meel walba ka xeeran yihiin, haddana in la wada hadlo oo la wada fariisto oo la isu soo dhawaado way fiican tahay. sida communique ka muuqatayna waxyaabo badanna waa la isku afgartay, waxyaabo badanna waa laga sii wada hadli doonaa. hadafka ugu dambeeya oo la wada hiigsanayana wuxuu yahay dalkaani doorasho inay ka dhacdo waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo, mid maxaan ku yiraahdaa raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato, mid u horseeda dalkan deganaanshiyo siyaasadeed iyo nabad iyo karaamo inay noqoto. haddii ay sharciyad xoog leh oo ay ka dambayso ka dhalato dawlad leh sharciyad xoog leh oo maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin, caalamkuna uu ku kalsoon yahay. haddii la yiraahdo waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in laga miro dhali karo arrintaas la keeni karo haddii qof walba uu iska xil saaro oo ka adkaado hadalladiisa iyo caatifadaha iyo waxyaabaha. waxaa laga hadlayo mustaqbalka ummad dhan waaye, laguma go'aamin karo caatifad iyo qof maalin xanaaqe iyo qof rabitaankiis iyo qofaf rabitaankood iyo muxuu ahaay laguma go'aamin karo. waxaan rajaynaynaa biseylkaas siyaasadeed ee maanta halkan ka dhacay inuu sii muuqdo. ra'iisul wasaare Rooble oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in wada hadalladu ay ahaayeen kuwo miro dhal ah oo ka turjumaya biseylka siyaasadeed iyo tanaasulka danta guud ee dalka. xaqiiqdii meesha aan taaganahay qofkii istaaga ayaa garan kara cawada farxadda ii leedahay in dad walaalahay ah aan maanta halkan ku soo gabagabaysano heshiis is-afgarad ah oo aan soo gudbinay statementigiisa. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii igu garab istaagay
iina soo jeediyey hawshan baaxadda leh oo culus inaan guto sida ugu wanaagsan. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo farsamayaqaanadii sancadaydii hawshan soo fududeeyey oo qayb weyn ka soo qaatay labadii isbuuc ee ugu dambeysay isbuucii barkii ugu dambeysay ay isugu jiraan xildhibaano iyo senatoro. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa idin maqannahay nagu seexda waa noo muhiim amniga dalka waa noo muhiim xorriyatul qowlka waa noo muhiim inaan dhammaanteen ku noolaano nolol wanaagsan oo mustaqbal fiican leh. mudaharaad nabadeed waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay. waxaa iyadana waajib ah in cid markaa mas'uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan dibna uu naga soo wada gaarin. insha Allah sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneed waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa. insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhameeyo inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirano. heshiiskan hordhaca ay gaareen xukuumadda Rooble iyo hoggaanka midowga musharaxiinta ayaa wax badan ka bedelay dareenka maanta oo Jimco ah oo ay reer Muqdisho isla dhex marayaan bacdama ay maalin ka hor filayeen in maalinta Jimcaha oo maanta ku beegan jawigu ka duwanaan doono sidii hore balse taa ay dhicin. Sharmaaka Xuseen, wararka warbaahinta SBC, Muqdisho.